سلام كدب وحرم مهدان إلهي واسكله ربي واسكله تبارك وتعالى لكن جهدي كان يهشيس كان وناقيسة إنه هل كان سوق جارو وحندي كرا بقولك سجاشن يشن وعسكله وصاحبك وزير عبد الرحمن وأننا أدو جعله حقيقيا ودريمي مركزتو وأن كلا لحنو أنا يوم مدحت الدولة ده هو ده هل يسي أي كان لها وركا شكتين وحبك مجران أنا لها وحبك مجرد عبد الشيء وركا شكتين دي بسكون كان سوء علني مالكاس عبد الرحمن بأسكله إلهي بان سوق تقليه شعب كيجا مرح بيتاجيهين شلي تاجناين درهات بيتاجناين ونفهمها يا ما أنت تاجيهين أنت عروض سبيئة بالغيا بأن كقرع شيئين وكقد شيئين وكعس شيئين وحلقيا بأن أي واحد بدن كقرمان وإذا كيما هذا علنا ربيتان كينا منا كلا دمان دونه وأنا سيدا سكبا حذوين بان إن شاء الرحمن إسكولنا ولا هاي مالك كيما سعسان شلي إلا الله لا إلا الله هدي عند إيمان waxaan kaga tegi karaa dugsi waa dab saarnaa siyaasadda waa meel ka shidnay Soomaaliya oo dhan baa mar waxay u wada haysatay rooti aniga madax ka ahaa waan soo damiyay inaan soo damiyo qof kasta inaan u sheego oo taas macnaheedu tahay maqaayad qof kasta oo siyaasi ah oo xanaaqsan igula daaranayay إن أن باش عالمك يمدح الصوماليات بدمان تاع عاصمة دلك تجا عن أشياء ومقايد إني حرمتي ويحكوا عن كهذا الله ينتهي دلك الصومالي وهرمركسي دولوني سلوا بشغية لكن جذا عيد اللي جاي ديارات بالجد جيتوا هذا كده شيء دجال باكس عضو وركاس ويحرمي مقايد أنا إيش الند أنا واحد وحلاقي أبا waxaan hubaa shacabka iyaga Soomaaliyeed ee gobolkan ku noolaa ama qurbaha jiray ama gobolka kale Soomaaliya joogay waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo biidinilaahi tacaala siyaasad baa dagaalsaneed suu saaxiibka wasiir cadaal u sheegay ciidan ma dagaalsaneen ciidankanagu waa hal cadowganagu waa shabaab magacaanagana waa Soomaali dalkana waxa ka jiro dawlad federaal ah oo federaaleysan ah annaka waxaan nahay oo shacabkan uu yahay ciidamadooda dawlad goboleedka Jubbaland warkaas waa la maqlaa Soomaa macnaha ma ahan hadduu Cabdirashiid yimid ciidamaduna imaadeen shacabka iyo ciidanka ba inay Jubbaland ahayn ma hayo gobolka reer Jubbaland baan nahay saas waa fahmaysaa calanka anaga baa asaga magaca anaga baa Jubbaland ah dawladnimada anada waa taas ah dalka dhan baa federaal ku dhisan laakiin Jubbaland muddo dheer oo ay dhisneed Jubbaland la wada leeyahay ma ahayn Jubbaland gaar ah u badneed waxaan sameeynaa oo raadinaynaa saan shalay media u sheegay Jubbaland la wada leeyahay insha Rahmaan Jubbaland la wada leeyahay xuquuqdeeda loo simeeyahay mas'uuliyadeeda loo simeeyahay qofna aan laga lahayn waxaan go'aamada inaan qaadano waxyaalaha ugu badan oo nagu soo way ahaa dalkii dawladnimadiisa qarib bay gashay siyaasiyiintii nin kasta wuxuu istaagay meel aanan cidno inuu ka soo wado uusan ogolayn gobolkan waxaa ku dhacay colaad waxaa ku dhacay abaar waxaa ku dhacay cudur aniga hadda shakhsiyan gurdambeys baan hooyaday u ahay da'diidan cirada aan ninka joogo da'dan ah hooyaday aan hadli karin oo cudur ahayo oo corona tabcan lahan shalay soo maro aan hatta afkeeda hadalka soo bixi karin hooyo kasta iyo cunug kasta iyo aabbo kastana dhibkaas haysto haddii ayada colaad loogu daro iyo xabad oo abaar u sii weheliso waa arrin aad u adag waay waxaan qaadanay marka shacabkayga noocaan noo jecel inaan u tanasulno oo wax kastoo qabnay uga tanasulno sababtoo ah waxa aan wax ku nahay oo aan ku sharfanahay waa shacabka waay haddaan shacab haysanin mana sharfanin madaxna ma nihin qofku wuxuu madax noqdaa markuu dalna haysto dadna uu haysto haddii dal la waayo dadna la waayo madax qofku ma ah wuxuu madax yahay qofku inuu labaas qof haysto waa idinkaga mahad celinayaa rabitaankiina aadka u fara badan oo xaqiiqiyan wax la koobi karaan ahayn ama dhameystirana shacabka iyaga aan u hayo ana u hayn doono weligay intaan noolahay haddii alla idmo mana hilmaami doono wanaaga iyo qalbi samaanta meel kastoo aan joognay aad nagula daba socoteen haddaan nimidna aad la taagan tihiin haddii aan dagaal ku jirnayna aad nagula jirteen colaadda aydaheed say saaxiibaday u sheegeen bakaal iyo cali wasiirrada u sheegeen guddoomiyaha gobolka u sheegay
faylka asagaa waa xirnay nala xiro gabar la hadasho waxaasaa la yidhi saasay ahayd arrintaas ayadaa insha araxmaan inaysan dhacaynin maga ballan qaadaysaan qarannimada Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyo wanaaggan ka wada shaqaynaynaa